daawadaha qiimaha badan oo kusoo dhawow muuqaalka xiga ee Toosane Technical. Muuqaalkii ka horeeyay waxaan kusoo sharxay sidaad uga hortagi lahayd in Facebook-gaaga remember lagu qabto ama shirkadda Facebook ee kuu diiwaan geliso inaad tahay qof dhintay sidaasna account-kaaga Facebook iyo habada ugu saaraan. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu tuso haddii Facebook-gaaga remember lagu qabtay oo habada laga saaray sidaad u soo ceshan lahayd ama foomkii laga baahnaa in aad buuxiso qaababkaad u buuxin lahayd ayaan muuqaalkan rabaa inaan kugu sharxo. Fadlan yaan war badan galin soo dhawow. marka aad doonayso inaad buuxiso foomka Facebook ee kaga baahan yihiin inaad soo gudbiso waxaad marka hore tagaysaa application-ka Chrome-ka waxaad qaybta sare ee Chrome-ka ku qori doontaa waxaad kaliya ku qori doontaa my personal account is memorialized waxaad kaliya ku qoraysaa qaybta sare ee Chrome-ka my personal account is memorialized kadib markaad ku qorto aad ku dhufato wuxuu ku keenayaa qaabkan iyo noocan waa soo dhaweynaysaa adigoo adeegsanaya fartaada iyo suulkaaga kadib qaybtan sare ee ku qoran tahay my personal account is memorialized Facebook ayaa taabanaysaa oo linkii ugu horeeya ah kadib waxa ku soo bixi doono foomkan ayaa ku soo bixi doono oo soo jeed meeshan waxa laga baahan yahay meeshan inaad ku qorto wuxuu ku leeyahay waxa laga baahan yahay your full name magacaaga saddexan ayaa marka hore laga rabaa Facebook-ga memorialize laga xiray ama Facebook remembering laga xiray oo habada exat Facebook waxa rabaa magac saddexan ee ku qornaa inaad meeshan ay geliso magacaaga saddexan inaad meeshan geliso tusaale dinaanays ee la socoto oo kale foomka aad xareynaysid ama passport ama waxyaabo kale lagu diri doono waxa rabaa asana in ay iswaafaqaan magaca ku qoran iyo magac meeshan ku qoran haddii iswaafaq waayeen Facebook ku soo dii doonto waxba ha ku daalin kadib halkan waxaan gelinaynaa magac saddexan Facebook naga maqan anaad Facebook igama maqna laakiin waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku tuso oo kaliya tusaale waxaan qoraa hadda magacayga saddexan oo Facebook weysaan u qoran yahay Mohamed Ibrahim aadan saas amana markaas u qoray magacaaga saddexan markaad qorto kadib qaybtan wuxuu ku leeyahay waxaad gelisaa email shaqeynayo oo laga soo xiriiri karo ma aha emailka ku xiran Facebook-gaaga oo ku xirnaa ma aha waa email shaqeynayo oo laga soo xiriiri karo oo markii xogtaan aad gudbiso lagu soo aqbalo ama kale wax ay ka jiraan email lagu soo diray loo baahan yahay kadib waxa gelinaysaa markaas emailka rabo in laga soo xiriiro emailka ayaan gelinay aniga halkan waxa gelinaysaa meesha ay qoran tahay year waxa gelinaysaa sanadka adiga dhalatay ee Facebook-ga ka maqan sanadkii marka uu sameysnaa Facebook adiga remembering laga qabtay sanadka uu ku xirnaa tusaale oo kale hadii meeshaas ay ku qorneed kooda bisha koowaad 1996 ama 97 ku qorneed meeshan waa inaad gelisaa kooda bisha koowaad 1996 hadii iswaafaq waayeen Facebook ka maqan ee aad codsanayso in lagu soo deeyo iyo xogta meeshan aad gelinayso ma lagu soo deeyin doono qaybtan waxa taabanaysaa marka yeerka ama sanadka u baahan tahay tusaale waxaan gelinayaa 1996 ama ayaan gelinayaa kadib waxa weydiinayaa bisha halkan bisha waxaan gelinayaa bisha Agoosto ayaan gelinayaa kadib waxa weydiinayaa dhayga ama maalinta ka dhalatay bisha Agoosto maalinta ka dhalatay waxaan gelinayaa marka labada waxaan qodayay marka 2 Agoosto 1996 waa dhalashadeedii kadib meeshan halka ay qoran tahay choose file ayaa dooranaysaa meesha maxaa soo gelinaysaa marka meeshan waxaa soo gelinaysaa tusaalada diraysa passport oo kale aad diraysid passportka ayaa markaa soo gelinaysaa ama marka waxa haystid waraaqada haystid gobol ama waraaqada kale license hada haystid oo kale gaari ama driver hada haystid iyo waxyaabo kale oo markaasi national ID card hada haystid oo kale waxyaabaas ayaa markaa meeshan gelinaysaa saa u dirtid qaabkii loo gelinaa marka tusaaladii passport aad dirayso ina scan saartid meeshan ma gelinaysid scan ahaan ma ugu diraysid waxa u diraysaa qaabkan fiiri noocan meeshan soo saar oo kale saana marka u gelinaysaa hadii aad diraysid wax gobol ku saabsan anaga waraaqada aan gacanta ku hayo waa waraaqada gobolka waaye aan isku sabiray kadib waa diray magacaaga waxa rabaa marka la soo dhaweeyo magaca meeshan ku qoran in la arki karo si magaca meesha loo waafajiyo marka meeshan aad juice ayaa ka doonaysaa juice file kadib wuxuu ku gudbinayaa qaybta gallery ayuu ku geynayaa meesha marka screenshot-ka ama sawirkii marka aad soo qaaday screenshot ma aha sawirka aad ka qaaday oo sidiis ah oo sida nooca meesha aan ka tusay oo kale ah ayaa markaa soo gelinaysaa hadii marka aadan haysan passport ama wax dawlad ku saabsan baad haysan maxaa sameyn kartaa waxyaabo kale aqbali kara ma jiraan ha meesha hada akhris wuxuu ku leeyahay please make sure we can clearly see your face in both the photo and ID wuxuu ku leeyahay marka qaybtan tabs
waxaa meeshan qoran marka types of ID we accept yani waxaa jira waxyaabo kale ID kale oo markaas aniga aan aqbalno meeshan taawanay marka aan fiirino waxyaabo kale ee shirkadda Facebook ay aqbalayaan in Facebook nala soo deeyay maxaa kamid ah marka aan fiirino hadaan haysan marka passport iyo waxyaabo dawladda ay ku siisay oo government issue ah waxyaabo kale marka government issue ayaa jiro oo adiga marka xariisan kartid sida waxa la mid ah shahaadooyinka oo kale dugsiga sare kaarkaaga jaamacadda ama kaarkaaga iskuulka oo kale haystid ama kaarkaaga jaamacadda hadda haysatid sidoo kale waxa markaas diri kartaa hadda haystid refugee kaar hadda haystid dadkan qaxootiga ku jira kaar la siyaa jiro hadii kaas amal haystid waxyaabo la ogol yahay jir meesha aan fiirno marka waa ka marka wuxuu leeyahay government IDs waxyaabo dawladda la ogol yahay marka waxa waaye inay gelisid magacaaga iyo date-kaaga iyo birth name-ka waa inay gelisaa labo sidoo kale waa inay gelisaa magacaaga iyo sawirkaaga waa inay gelisaa meeshan waxaa gelinaysaa driver license hadda haystid driver hadda tahay national ID card hadda haystid passport hadda haystid birth certificate yani dhalashada haystid waxa waaye warqad dhalashada iskunaanta waa tii dawladda aad ku sheegay sidoo kale waxyaabaha dawladda markaas la xiriiro waxyaabaha marka aan dawladda la xiriirin marka meeshan fiir tusaale ahaan wuxuu ku dhahay examples of non-government IDs waxaa kamid ah oo la aqbali karo student card oo kale waa ID card-ka adiga library card hadda haysid refugee card hadda haysid employment certification hadda haysid verification hadda haysid diploma hadda haysid loyalty card hadda haysid marka intaan midka haysta ku gali kartaa marka aad dirayso oo tusaale oo kale ID card ama kale sawir marka dirayso ID card iyo certificate oo kale ID card iyo certificate ama marka inaad dirtid waxaa sameynaya sawirka noocan ah u galay hal mar ID card-kaaga iyo certificate isku qabanay waxyaabaha aan dawladda qusaynin laba document la rabo inaad soo gelisid saddexaad waxa u jeedaa waxa isku hayaa waa ID card-kii iyo shahaadadii isku hayaa laba shay laga rabaa marka aad wax dawladda qusaya aad diraysid laba shay waxa rabaa shayga markii la soo dhabeeyana clear magacaaga loo arki karo iyo magaca Facebook ka maqan inay isku waafaqaan rabaa marka clear na u diri kartid marka waxyaabo kale la ogol yahay aad dirsi kartid waa marka waxa ka diraysaa halkan kale juice file ku qoran meesha hoose marka taawanaysaa marka meesha kadib wuxuu ku dhahay send dhahay imtixaan yar oo ka qaada erayar oo meesha ku soo qora erayadaas markuu meesha ku soo qor marka waxa dhahay erayada marka meesha gelisid kadib wuxuu ku leeyahay send dhahay marka dirta kadibna emailka meesha ay gelisay oo meesha emailka ay gelinaysay ayuu dhow wuxuu ku soo diri doonaa wax kasta oo information ah oo markaas Facebook-aas ku saabsan waa intaas oo nidaamkaas ayaad u buuxinaysaa kadibna waa diraysaa rajaynayaa in 24 saac markuu ka maqnaado Facebook-gaaga jawaab lagu soo siin doono oo aad ku faraxday insha Allah waa intaas fadlan channelka da ku cusubtahay subscribe saar lana wadaag asxaabtada muuqaalka u share garay hadii aad muuqaalka heshay like saar wixii faala iyo comment ana qaybta hoos nagu dhaaf iyo ra'yi inta aan ku kulmeen muuqaalka xigo nabadgelyo wassalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh